بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdimaalik Maxamed Askar ajaladan hadii Allah wadalo ogolaado waxaanu ku qaada dhigi doonaa heshiiska dhaxmaray ururka ONLF iyo wadanka Ethiopia waxaana ajaladan idin diyaariyay Somali Media waa Cabdimaalik Maxamed Askar Sakriya Aadan iyo Cabdi intii aad sabab la joogay ayaa waftigani waxa loo qadhaciyay dhinaca wadanka Soomaalida deegaanka Soomaalida ay degan yihiin gaar ahaan magaalada caasimadda ee Jigjiga waxaan joognaa magaalada la yiraahdo Dirri Dhabo ee caanka ah taasaan joognaa waxaana loogu soo dhaweeyay si fiican waxaan hadda fadhinaa hotel aad u fiican oo qabow la rusheeyay dhir wanaagsan ka baxday joognaa magaalada Dirri Dhabo waa magaalada madaxda dalka Itoobiya waxaan ugu nimid jawi aad u qurux badan iyo hoteelada maanta ku shaqeeyaan ayaanu hadda waxaynu nasiina ku qaadanaa annaga u sii kicitabayna xagga Jigjiga maanta waxaan joognaa magaalada Dirri Dhabo oo ah caasimadda labaad ee wadanka Itoobiya magaaladaas aad iyo aad u qurux badan oo green ah ayaanu joognaa waxaanu transit ku nahay magaalada Dirri Dhabo oo ku taal magaalada madaxa bannaan ee magaalada labaad ee caasimadda Itoobiya halkaas oo loo soo socono Jigjiga waxaan joognaa magaalada Dirri Dhabo oo ah madaxa labaad ee wadanka Itoobiya annaga hadda ka imaanay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya magaalo aad u qurux badan baan imaanay aad iyo aad la yaabayso quruxdeeda wanaageeda waxaan joognaa magaalada madaxda labaad ee Itoobiya ee la yiraahdo Addis Dirri Dhabo isla markaasna ismaamul gooniya waa magaalo aad iyo aad nooca كل عقبة جلسية خاصة هذا قرح بدن جو جيدون هودون آدي آدي في عيا. أنت وحال شغلنا مجال الدرب الله. قربا كودا بس مجال هذا. هذا ولا جيب معنا من هراء ومن. أمرك جوري ساتي بعضه. أمرك جور ساتي فاس صوت قلبي شو. فكرة هان محد كيستي. فكرة هان وحن كيستي مجال أعد قرح ده ومجال ألف وقتي لحد صرفور لا تضاعف صرفور الدوكو يدوسوا متقرد استنشري وهواده إنه ألف في عنده ورجع والبقالور جيلو كذا وركسين جوت إنه الله صار حاجة بحق الدوكو ركوب يستوي مجال ألف في عنده كاد بيقول بدن طيب مجال الدير دبا وين النعجبيسي وأنا كهلاي مارت عمله ده مارت قبو أنا هاين كلايل كبدن أنا هاين magaalada ku dhir wanaagsan ku taalo weeyaan waftigaasi ayaa waxa loogu soo dhaweeyay si aan caadi ahayn halkaasi oo gabdho aad u labisnaa hidiga dhaqan kale ay ku soo dhaweynayeen cayaaraha Soomaalidu ay u leeyihiin hidiga dhaqanka ee loo yaqaan Jandeerta magaaladaasi Jigjiga ayaa waxa loogu sameeyay waftigan casuumad aad iyo aad u weyn xafladaasi oo quruxda badan leh ayaa waxa markii ugu horeysay lagu soo dhaweynayay heeso loogu talagalay waftigan uu horkacay injineer Saaxidiin oo ah gudoomiyaha ururka ONLF waatan heestii quruxda badneed ee runtii loo alifay in lagu soo dhaweeyo.
waagaag heestaas ka bacdi ayaa waxaa runtii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Cabdifataax xiriyadiisina waxaa kamid ahaa mar uu la hadlayay xafladda halkaasi loogu sameeyay dadkan in lagu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga sida tan shacabka Soomaaliyeed in oo leh iyo dawladda Itoobiya heshiis markaasi wadahadal ugu socdo oo ay bilaabeen wadahadalo nabadeed Soomaaliya waxay ku maamulada iyo waxay isku yimaadaan dadka Soomaaliyeed waxa u dana sida Soomaalidu ku maamulada sidoo kale maanta waxaan ku leeyahay maamulada ka badanay sida Soomaalidu ku maamulada wixii mushkil romba ilmaha loo también hawiyaan wixii u roon dhammaan hogaamin ayaa u shaqo Soomaaliyeed runtii go'aanka qaateen markooda maanta kan madaxdiisii la joogto waxa weeye go'aan geesinimo oo u baahan in ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay taageerto sababtoo ah in dagaal la keeno waa wax dhibir laakiin in nabad la qaato aad loo dhibantay nabad aad u fadhiyo waxay dareemi kartiin in la qaato go'aan nabadeed inuu daxal ka qaraan yahay oo ay qaadan karaan aqliyada saliimka ah iyo Cabdifataax khudbadiisii markii uu intaasi uu ku soo gabagabeeyay ayaa waxa markaasi lagu soo dhaweeyay masraxa si aad iyo aadna loogu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka deegaanka mudane Cabdi Cumar ereyadiisina waxa kamid ahaa isagoo oo kooban sida tan waa ku cusub taariikhdan waa ay xafladda oo kale maalin hore u qabanay waxaan dhihi karaa حفلة آلية قالوا أما تبادل آلية قالوا أي هاي ونسولو إنه من هاي بونكيرو هذا نسولو سواء وحنا وما نهاي نور بابا نهاي وأي نور ما بحرم قوي واحد ديانة دولة الصومالية التربية كرر ديانة كان وأنا معاوي مركب حفلة نبض وقرنية أما ضد نبضية حفلة قتل وحميقة وحيقة على سنة حفلة عقرب وحيقة على سنة لو هانا دينه
deegaanka Soomaalida maanta ama dowladda Soomaalida marka Itoobiya la yiraahdo ama Itoobiya laga hadlayo haddii la yiraahdo xagga baaxadda ka koowaad ama ka labaad ma aha laakiin qoraalku wuxuu yahay waa ka labaad ama Itoobiya laga hadlayo dadka markay tahay waxaa naga badan oo keliya Itoobiya marka la helo ormada iyo xabashada marka waxaan dhihi karaa Itoobiyaanimadooda mid aan cidna uga fadhina maayo waa mid aan ku faanayno haddaan laga looga fadhiyo marka deegaanka Soomaalidu wuxuu ka mid yahay dowladaha sagaalka ee ka jira ee dalka Itoobiya sida uu soo yahay wuxuu leeyahay 952 degmo madaxweynaha khudbadiisii kadib markii uu sharaxay deegaanka dowlad goboleedka inta uu ka kooban yahay iyo inta mas-uuliyadooda ay gaarsiisan tahay iyo sida ay hamuun ugu qabaan nabadgelyada ayuu waxa kale oo dhinaca kale ugu soo dhaweeyey gudoomiyaha ururka ONLF injineer Saalaxdiin oo isagana ereyo kooban halkaasi ka jeediyey waana kan ee ku soo dhawaada ويجي أنا كنت فكرين إن الإنسان كسر كذي ولا إذا يعني أما مساعدة ولا أمريكا وعندنا حاجة إن سكار حسام يا لهوينا اسمه مصالحة بدوني حسبك ما رأيش أما اسمه مصالحة كل يعني تمسير على وضع يوحي كترسل نعمة حزب كترسل يوريتي ما كترسل سوق العصام يا ولا يعرف ولا أمريكا ولا وكان سيروني يتكلم والله كيف تسلا كتر صار سفري يو يدي هذا سيسي جوكر قال عن سلام يا قبلتي حتى السنة بيعملوا لو هي عاديا يعني حفرة وحكومة يركز وتصل الله يسأل صل الله كبير يا فنان لماذا يوتو أو يسوع ركع على رأسه سلوا الفنان لكن ما في الوش حتى إن بقي حتى كيسي إذا كنا لماذا مصابرتين يعني سكولة وجامعات مصابرتين لكن أنا بفرح الصراحة waagaag injineer Saalaxdiin iyo ereyadiisii haddaan intaa ugu gudubno xafladdu intaa kaliya kuma koobnayn waxaa ka hadlay mas-uuliyiin badan waxaana ka hadlay runtii dad badan oo iyagu kusoo dhaweynaya ururka ONLF magaalada Jigjiga waxaase sidoo kale barbar socday iyagana hidiya dhaqankii iyo heesihii badan ee halkaasi loogu talagalay bal heestan kalena haatan aanu daawano
halkankay wadaan reer Subayr waa habownime hawiraan naftooday galeen hadima xeel dheere xabashka wada duulay badaha soo qaabtay ee Soomaalidii heelanayd halabsadee fuulay anaa keligay heensaynayo soo hoggaan baraya waariyo hurdadu keentay iyo qaar habsaanihiye bal inay dagaalkay humeen lagu halaagmaayo ma hayaan hub iyo saanad iyo ciidan heeganihe ma hayaan cid heel iyo waxqabad kula heshiiyeene kuwii hayb u xigay baan haddeer hoyga gelinayne darbaa magaca haaraamayo kaaga haayiree harti iyo bahgari baan hadayn ficil horseedkiise hareertaa galbeed qaar jiraan soo hinqanaqayne gari iyo jidwaaq la hubsayo waa hamranayaane cawlyahan hub soo qaatay baan lagu hallaynayne reer aw humaaggii galay wada hagoogtaane hawiyaan hadh kuu jiidahayn waa idin hodayaane isaaq hadalki daayoo dhammaan waa handanayaane markii adiga hoobiya madfaca lagu huluuqsiiyo markii adiga hoobiya madfaca lagu huluuqsiiyo ambadii dalkiinnii ka hadhay waa hantiyayaane annagana hamaansiga xigaa waa habeen qudhahe makaahiil halkuu naga xiga ahaad ku dhacayaaye hara xagarray kama foofiyaan geel horweyn ahe abraahiin hubkii lala dhacay hibasho weyn reebye suldaankii hogtaa lagu fadhiyey haatan laga waaye raggii halaha lagu maali jiray waa hangool jabane arrintaa bal hoos ugu faqoo hubantideed keena haddii kaleese anigaa hungiyo ruux hadhiina ah afartaana haasaawo iyo hoga tusaalayn wagaag intaas aan uga gudubna xafladii quruxda badneed ee loogu sameeyay jigjiga tiyaatarka weyn ee la magac baxay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan loo bixiyay tiyaatarkaasi oo runtii aad iyo aad u qurux badan qadiimina ah ayaa runtii xaflada quruxda badan loogu sameeyay ururka ONLF kadib xaflada habeenkaasi subaxina waxa gudoomiyaha ururka ONLF uu dhaadhacay ciidamada ururka ONLF ee soo galay gudaha ee markaas iyagu nabad qaatay qorigana tiiriyay ayaa waxaan ku booqanay xarun weyn oo halkaas lagu diyaariyay ilaa askar gaaraysa boqolaal gudoomiyaha oo si toos ah ula hadlaya ciidamadaasi iyagu ururka ONLF ahaan jiray laakiin hadda nabad qaatayna bal haatan gudoomiyaha khudbadiisii